بسم الله الرحمن الرحيم. مدن قدومية هذا يا ما تصنتهاي اللي بعنا والسلامتين يا دمان هالوضعنا ذا. مدن قدومية سؤالها يقدم توصوا بارو مدن وزير واحد حلية بدن وكل دول نوشكتين شعب الصوماليات يومد الصوماليات يو بيش عالم كبعضو شكتين ناس دق أمريكا وحقوق قوانيسان kuwaasoo iska noqday hadallo beerjilacsi iyo waqti lumis u batay sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa maanta inaad su'aalaadka sida ay yihiin uga jawaabto isla mar ahaantaana aad xaqiiqda ka sheegto xaaladda ay dalku marayso ayaan ka codsanaynaa su'aashayda koowaad waxay tahay wasiir ilaa markii xilka lagu dhiibay waxaa muuqata in amniga dalku uu faraha ka baxayo taasoo si cad u muuqata maadigaan aqoontii aad ku hogaamin lahayn mise hay'adaha amniga kuugu xilsaaran ayaa gudan waayay waajibaadkooda su'aashayda labaad waxay tahay wasiir maadaama aad ku fashilantay mas-uuliyaddii lagu idmaday ee amniga dalkuna faraha ka baxay diyaar ma u tahay adiga iyo cidda kale amniga kula qaabilsanba inaad xilka iska casishaan cadaaladana laydin horgeeyo oo wax laydinka weydiiyo qalab ka joojiya sacad ka joojiya oo wax laydinka weydiiyo dhacdadii weerarkii xarunta madaxtooyada ee qaranka dilalkii loo geystay xildhibaanadii qaranka ee kala dambeeyey odayaashii dhaqanka saraakiil shacab dhakhaatiir iyo xubno qaybaha bulshada ah sidoo kale in wax laydinka weydiiyo xubno badan oo ciidamada amniga ah oo si sharci darro ah loo kala diray isla markaana lagu beddelay kuwa suuqa laga soo ururiyey sida ciidankii aad u bixiseen shabeel ee aad ku ururiseen iskoola bulisiyo kuwaas oo la kala diray iyadoo oo meel ay ku sugan yihiin ilaa haddaan la ogeyn sidoo kale jidgooyooyinka faraha badan ee yaalla magaalada dhexdeeda ee shacabka lagu ciqaabayo oo u eg inaad idinku is-ilaalinaysaan meeshii aad shacabka ka ilaalin lahaydeen si wax laydinka weydiiyo sidoo kale su'aashayda saddexaad waxa weeyaan wasiir ilaa intii xilka wasaaradda amniga lagu dhiibay waxaa faraha lagu geliyey oon marar badan ansixinnay bajad iyo kharashaad aad u fara badan maadaama aan amnigii wax laga qabanin oo amnigu uu faraha ka baxay xaggee ayaad ku bixisay kharashkaasi faraha badan su'aashayda afraad waxa weeye mudane wasiir markii ay dhaceen falalkii kala dambeeyey ee odayaashii sideedda ahaa iyo kii xildhibaanada gaar ahaan xildhibaankii maalintii dhoweed lagu dilay madiina ciidamadaada amnigu waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan gacankudhigilayaashii geystay xaggee ayay ku dambeeyeen xaggeese wax marayaan su'aashayda ugu dambaysa waxa weeye maxaa sababay dagaallada soo noqnoqonaya ee ciidamada amniga dhexdooda sida midka ka socda tixsiile ka dhacay muuri midkii ka dhacay number conton iyo midkii ka dhacay balcad aad baa u mahadsantahay mahadsanid waxaan hadalka siinayaa wasiirka si ugu jawaabo saddexda xildhibaan su'aalahooda nidaam aan isdhegaysano بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قدوميها قدومك بارلمانك حبناها شرفت لي بارلمانك صحافة إما تشرفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كوباد وحان آدي وفرح سنة هاي إن بارلمانك الصوماليات مدش صهر يستاغو asagoo baarlamaanku uu gudanayo waajibaadkiisa qaran ee ka saaran dalka oo ay ugu horeyso inuu la xisaabtamo hay-adaha fulinta shaqadooda waxa ay qabteen iyo waxa ay ka gaabiyeen waxaan u arkaa inay tahay xil qaran oo ay gudanayaan annagana waxaan isku aragnaa inaan nahay dad lala xisaabtami karo su'aalo la weydiin karo marka shaqo qaran annagii idinkaba naga dhaxaysa inaan gudanaynan aad iyo aad u aaminsanahay aadan ugu mahadsantihiin mudane guddoomiye mudanayaal
waxaan codsan lahaa intaanan jawaabaha su'aalaha aanan bilaabin maadaama ay dhici karto su'aalaha la weydiin doono qaar badan oo ka mid ah inay xasaasiyad iyo xog aad iyo aad dheeri u ah oo taabanaysa amniga qaranka iyo ciidamada dalka maadaama ay dhici karto inay yihiin waxaan codsan lahaa fadhigu inuu noqdo fadhi xiran oo saxaafaddu ay ka maran tahay waa haddii xildhibaanada qaranka nidaam xildhibaano nidaam mudane guddoomiye waa haddii xildhibaanada qaranka ay iga doonayaan jawaabo buuxo oo su'aalahoodii shaafin kara haddii ay iga doonayaan waaye waxaan codsan lahaa su'aalaha qaar jawaabahooda kuwa hadda la weydiiyey iyo kuwa badan oo la weydiin doono oo xildhibaanadu ay xaq u leeyihiin inay weydiiyaan anigana waajib liigu leeyahay inaan uga jawaabo xildhibaanada in saxaafadda shirka ay bannaanka ka noqdaan ayaan shirguddoonka iyo baarlamaanka sharafta labadaba ka codsan lahaa mahadsantihiin markii haddaba wasiirka arrimaha gudaha uu codsaday in saxaafadda bannaanka loo saaro oo kulanku uu noqdo mid albaabada ay u xiran yihiin ayaa guddoonka baarlamanka waxa uu codgeliyey in xildhibaanadu ay go'aamiyaan in kulanku saxaafaddu ay dibajoog ka noqotay in kale codayntaasi gacantaaga ahna xildhibaanadu waxa ay isku raaceen in saxaafaddu kulanku ay goobjoog ka noqoto waxyaabaha dhacaya ayay noqdaan waxyaabo jawaabahooda ay si toosa shacbiga Soomaaliyeed u helaan waa kan guddoomiyaha baarlamanka oo ku dhawaaqaya natiijada codaynta xildhibaanada iyadoo kadibna uu guddoomiyaha baarlamanku ku soo dhaweynayo hadalka wasiirka amniga qaranka natiijada codayntiina waxay noqotay sida soo socota waxaa ogolaaday in marata ay ka baxaan 41 waxaa ogolaaday in ay saxaafadda inay joogto 100 waxa ka aamusay 8 marka way joogayaan saxaafaddu way joogayaan baarlamaanka waa mahadsan yahay nidaam kulley waxaan ku qasbanaan doonaa intii karaankayga ah in waxyaabo shaafiya su'aalaha la weydiiya aan bixiyo wixii ay igu muuqato inay amniga qaranka khatar ku tahana kulley xilligeeda waan sheegi doonaa su'aasha koowaad oo ku saabsan dhacdadii ka dhacday 21 Febraayo ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu weydiiyey xildhibaan Sanyare dhacdadaasi waxaa loo saaray guddi gole wasiirro ah oo 5 xubnood ka kooban iyo dad saraakiil sarsare ah oo ku takhasusay baaritaanka dambiyada waxaan kaloo caawinaad weydiisanay hay'ado dibadda ah oo dawladaha aan saaxiibada nahay siday baaritaanka qayb noola noqdaan baaritaanka qaybtiisii hore waa la soo gabagabeeyey ribood dhammaystiran oo fuul ahna waa laga diyaariyey waxaanan u gudbinnay dhammaan hay-adihii ku shuqulka lahaa oo idin waa u gudbinnay qaybihiisii kale oo ay qaybta ka ahaayeen dawladihii aan gacanta weydiisanay inay baaritaankaas qayb ka qaataanna way socotaa waxaan marka codsan lahaa in baaritaankaasi iyo natiijadiisii wuxuu ku soo gabagaboobay hadda aniga meeshan kuma hayo diyaarna ima aha laakiin guddiga amniga iyo hay-adaha u qaabilsan baarlamaanka inaan la wadaagno ama guddigii toos oo la wadaago ama aniguba aan la wadaago intaba diyaar u nahay arrinta ku saabsan hay-adaha private security-ga hay-adaha ilaa hadda ka rikoor garaysan wasaaradda amniga qaranka ee private security-ga horta walaalkay Sanyare aan 23 ma aha waa 22 hay-adood oo isugu jira 18 hay-adood oo ah local iyo 4 hay-adood oo ah international aniga intii aan joogay wasaaradda amniga qaranka 4 hay-adood oo kaliya ayaa la rejistareeyay 18 hay-adood waxay ahaayeen hay-ado wasaaradihii aniga iga horreeyay ee raisgareeyeen shuruucda
iyo nidaamyada hay-adahaasi loo adeegsaday rikoorgarayntooda iyo qaabkay ku shaqaynayaanna waa shuruuc ay dejisay wasaaraddii amniga qaranka ee aniga iga horreeyday lagana soo ansixiyey golaha wasiirada marka jiritaanka hay-adahaasi iyo qaabkooda loo raaco habraacooda maaragtay rikoorgarayntooda waa arrin golayaashii wasaaradaha ee aniga iga horreeyey iyo wasiiradii aniga iga horreeyey intaba shuruuc iyo nidaamyo ay ka dejiyeen anigana shuruucdaas iyo nidaamyadaasi ayaan u raacaa qaabraacaasaan u raacaa markii aan aragnay hay-adahaasi iyo khatarta ay leeyihiin iyo xaaladooda sida ay noqon karto annagoo tajribo ka soo qaadanayno waddanka ciraaq iyo waddanka afghanistan oo hay-adaha noocaan oo kale ah duruufo badan iyo xaalado badan ay la soo gudboonaadeen waxaan warbixin u gudbinnay golaha wasiirada waxaan warbixin u gudbinay guddiga amniga qaranka oo aan leenahay hay-adahani iyo qaabkay ku shaqaynayaan iyo siday u shaqaynayaan waxay u baahan yihiin sharciyo ka faahfaahsan kana dheeri ah ee shuruucda hadda aan annaga ku shaqayno oo aan ka dhaxalnay wasaaradihii hore waxay kaloo u baahan yihiin in dib u egid dhab ah lagu sameeyo baahida dhabta ah ee hay-adahan loo qabo iyo ayadoo la barbar dhigaya khatarta ay yeelan karaan warbixintaas aan u gudbinnay golaha wasiirada iyo guddiga amniga qaranka waxay keentay in amar uu ka soo baxo guddiga amniga qaranka oo la leeyahay hay-adahaasi ilaa shuruuc nidaamisa looga helayo hay-ad cusub oo hay-adaha security-ga private security-ga oo la sharciyeyn karana ma jirto kuwa hadda ka jirana haddii uu ka dhaco laysinka looma cusboonaysiin karo sidaas baan hadda ku dhaqannaa hay-ad cusubna lama sharciyeeyo kuwa hadda jirana hadduu laysinka ka dhaco uma sharciyeeyo ayaan dhaweyto waxaa dhacday xafiiska UN-ka hay-adda waardiyeysa oo private security-ga ah bishii janaayo waxaa ka dhacay laysinkaa ka dhacay waxay soo codsadeen in ayadoo la qadarinayo duruuftooda iyo amnigooda gaarka ah laysinka loo cusboonaysiiyo anigu waxaan codsigoodii u gudbiyey guddiga amniga qaranka 2 fadhi ayaa loo cusboonsiinayaa oo si gaar ah miyaa loo eegayaa masamaya dood iyo fanqeyn waxaa guddiga amniga qaranku uu isla go'aamiyey in muddo 3 bilood ah si gaara ayaga loogu sharciyeeyo laguna shardiyo 3 bilood gudahood inay hay-adaha amniga ee Soomaaliya kala shaqeeyaan in la dhiso diplomatic police unit oo bedela hay-adaha private security-ga iyo baahiyadooda oo idil bedela hadda marka wada shaqayn sidii diplomatic police unit loo dhisi lahaa ayaan waxaan wada shaqayn kula jirnaa hay-adaha UN-ka iyo qaramada midoobay meel fiican ay wada hadalladaas marayaan waxaan rajaynayaa haddii unitkaas la dhiso in baahida loo qabo hay-adahaasi oo ay dadka ajnabiga qaar u qabaan meesha ay ka bixi doonto unitkaas waxaan ugu talagalnay inuu ilaaliyo hay-adaha dowladda inuu ilaaliyo safaaradaha si baahida loo qabo arrimahaas oo dhan meesha ay uga baxaan xildhibaan cabdulaahi macalin runtii aad u mahadsan yahay wuxuu i weydiiyey 2 su'aal su-aasha koobaad oo ku saabsan agoonta booliska aniga wasiir ahaan xogta aan ogahay agoon booliska Soomaaliyeed u qoran oo haba yaraatee wax xuquuqdooda laga gooyey oo aniga aan ogahay ma jirto hadday arrintaasi sida xildhibaanka uu sheegayay u jirtane waxaan diyaar u ahay inaan baaritaan dhaba ku sameeyo cid alle ciddii mas-uuliyaddaas ay ku caddaatana inaan sharciga iyo waxa uu mutaysan yahay aan soo gaarsiiyey ayaan diyaar u ahay booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada guud ahaan agoontoodu waxay ka tirsan yihiin kana mid yihiin ciidanka ayay ka mid yihiin xuquuqda ninka ciidanka uu leeyahay ay leeyihiin cid haba yaraatee ka gooyn karta ama ka jari kartana male haddaanan dowladdu aysan qaab kale aysan u dhigin inta aniga ogaalkayga iyo xogteydii mas-uuliyaddeydana meel booliska agoontiisa mushaarka iyo xuquuqda uu leeyahay looga jaro la yidhi haba yaraatee ma jirto arrinta ku saabsan naafada waa sidoo kale naafadu waxay ka mid tahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin xaqa iyo xuquuqda uu leeyahay askariga Soomaaliyeed ay leeyihiin laakiin wax u qabadkooda kuwa aan dalka gudihiisa wax loogu qaban karin wax u qabadkooda oo xagga banaanka ah
waxay u quduucaysaa tabarta xukuumadda iyo awooddeeda u quduucaysaa iyo hadba miisaaniyadda la hayo iyo sida dowladda aan asxaab nahay ay nooga aqbalaan in ay arrintaas ayadaa wax nagala qabtaan waad ogtihiin caafimaadka dibadda wuxuu u baahan yahay qarash aad iyo aad u tiro badan qarashkaas aad u tiro badanna waxaa marar badan dhici karta inaysan hay-adaha dowladda iyo maaragtay wasaaraddaba aysan haynin waxaa jira dowlado aan saaxiibo nahay oo aan heshiis kula jirno inay dhaawacyada iyo waxyaabaha aan waddanka dhexdiisa wax looga qaban karin inay gacan naga siiyaan waxaa ka mid a dowladda imaaraadka laakiin ayaga laftirkoodu inta ay awoodaan inay qaadaan iyo baahidanada inta ay la eg tahay mar walba iskuma maaragtay dheelitirmaan marka naafada soomaaliyeed ee ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka maaragtay booliska nabad sugidda kulli intii karaankeenna iyo awooddeenna ah waxaan isku daynaa wixii laga qaban kara in laga qabto laakiin runtii aadan uga xunnahay qaar badan oo ka mid ah oon duruuftooda dabooli weyne inay jiraan aad iyo aadan uga xunnahay waana dhici kartaa waana jiraan saaxiibkay xidig su-aalo dhowra ayuu u weydiiyey su-aalaha uu weydiiyey waxaa ka mid ah arrin uu ku dhaliilayo hay-adaha amniga oo uu leeyahay wax gudasho la'aan miyaa jirta dabcan dhaliil iyo isdhaliil xaqan isugu leenahay aniga ka wasiir ahaan waa la dhaliili karaa hay-adaha waa la dhaliili karaa baarlamaankuna xaq buu u leeyahay maadaama uu yahay ciddii nala xisaabtamaysa inuuna dhaliilo xaq ayuu u leeyahay laakiin waxaan rabaa anigoo maaragtay hadda aan xildhibaankaas saaxiibkay si gaara u soo xiganayn oo si guud u hadlaya in ayadoo la isdhaliilayo oo dhaliilka isdhaliilka uu jiro haddana hay-adahanaga sharaftooda iyo karaamadooda iyo dadaalkooda inaan dhinaca kale ayadana aan ixtiraamno oon qadarino oon weynayno inay aad iyo aad u mudan tahaan qiyaasaya waxaan rabaa baarlamaanka soomaaliyeed inaan la wadaago xogtan yarta ah ama shaxdan yarta ah oo muujinaysa qayb ka mid ah hay-adaha amniga sida ay runtii u shaqeeyaan iyo howlaha ay qabtaan iyo waxa ay qabtaan ayaan rabaa inaan la wadaago xogtan waa xog aan ka soo ururinay ama laga soo ururiyey waxqabadkii hay-adaha amniga ee muddadii janaayo iyo febraayo iyo maarso waxqabadkoodii qaybo ka mid oon ka soo ururinay tusaale ahaan muddadaa 3 bilood ah xuuraanka iyo xog raadinta ee hay-adaha amniga ee kala duwan ee xuuraan iyo xog raadiyeen xogta ku soo dhacday oo ay heleen waa 8,559 xog ayaa ku soo dhacday 8,559 xog muddadaa 9-ka cisho ah oo kulligood lid ku ah amniga qaranka noocyadiisa kala duwan ama hay-adaha dowladda ayay hay-ada ahaan khatar ugu yihiin ama mas-uuliyiinta iyo ashkaasta dowladda mas-uuliyiinta u ahay khatar ku yihiin ama muwaadiniinta soomaaliyeed iyo meelaha halbowlaha u ah qaranka ayay khatar ku ahayeen xogtaas ayada ah ee 8,559 xog ahee nagu soo dhacday xogta lagu howlgalay oo hay-adaha amniga muddadaa 9-ka casho ah ay ku howlgaleen waa 2,690 xogood xogta lagu howlgal markaan leenahay waa xogta loo arkay inay dhab u ekaan karto xaqiiqo inay u ekaan karto xogta loo arkay waa xogta weli baaritaankeeda iyo hubinteeda ay socoto waa 2,046 xogood ayaa weli waxay socotaa baarideedii iyo hubinteedii ay socotaa 434 xogood oo xogtii nagu soo dhacday 9-ka cisho hay-adaha amniga ku soo dhacday waxaan la wadaagnay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amason maxaa yeeley waxaan u arkaynay xogag ayaga khatar ku ah oo inay ka digtoonaadaan inay tahay ayaan u arkaynay oo loo arkayey howlgallada muddadaa 9-ka cisho ah ee hay-adaha amniga ah ay qabteen ama ay galeen howlgalladaas ama ha noqoto howlgal hal qof lagu soo qabanayo ama howlgal guud ama howlgal faldhacay lagu dabagelayo waa 1,196 howlgal ayay muddadaa 9-ka casho ah ayay hay-adaha amniga ay galeen dadka howlgalkaas lagu soo qabtay dadka la soo qabtahay 2 nooc ay isugu jiraan howlgallada qaar waa howlgallo operation iska guud oo iska caam ah oo dadka la tuhmo oo idin la soo qabto laakiin marka la kala shaandheeyo oo la kala saaro aakhirka u dambeeya dad tuhmadooda ay culus tahay iyo dad waxa lagu soo qabtay lagu hubo ama yaqiin wax u dhow ay tahay ayaa ka soo hara
dadka marka howlgalladii la galay ee dadka lagu soo qabtay intii la isiri intaanay armay ay waxa lagu soo qabtay iyo waxa lagu tuhmayay ama ay dhab u dhow yihiin ama dhab yihiin waa 1288 qof 1288 qof dadkaasi ayaga ah inta maxaabiis loo gudbiyey oo xabsiga loo gudbiyey dabcan dad qofka xabsiga loo gudbiyay waa qof dambigiisii iyo baaritaankiisii uu dhammaystirmay oo maxkamad suga ah ayaa xabsigan u gudbinaa waa 404 qof oo dadkaa ka mid ah ayaa loo gudbiyey inta kale waxay isugu jiraan kuwa baaritaankooda weli u socdo iyo kuwa inta wax lagu waayey la sii daayo inta si taarget ah oo hebel oo al-shabaab oo guri hebel ku jiro ama meel hebel ku jiro taargetkaasi aan hubno lagu soo qabtay muddadaasi waa 62 qof 62 qof ayaa taarget aan hubno lagu soo qabtay muddada 90 cisha 263 shabakadood oo al-shabaab ay leeyihiin ay hay'adaha amniga ku guuleysteen inay burburiyaan maxaan ka wadnaa macnaheedu waxay tahay shabakada haddii waxay ka kooban tahay shabakadooda sida badan 3 qof ilaa 9 qof ay ka kooban tahay haddii hal qof oo ka mid ah shabakada la helaa shabakadaasi inay sii shaqaysaa waa u dhamaatay laannu qofkaasi xogtii 3 qof ama 5 qof oo kale hawsha kula jirtay ayuu sheegayaa shabakadaas marka waa shabaka burburtay ayagana taagtiga isticmaalaan waxay tahay markiiba shabakadaas waxay ka saaraan magaalooyinka haddii balweyne lagu soo qabtay haddii meel kale lagu soo qabtay markiiba way ka saarayaan marka anaga waxaan u ictibaarinaynaa shabakadaasi shabaka burburtay inay tahay ee burburka macnaheeda ma aha inaan shabakada oo idin gacanta ku soo wada dhignay ma aha laakiin waa shabakadaha aan xogtooda helnay qaar ayaga ka mid ah ama qof ama ka badan aan soo qabannay oo howlgab noqday waay marka waxaan runtii aan shaxraas ama xogtaasi aan maaragtay rabay inaan baarlamaanka ula wadaago in hay-adaha amnigu ayagoo runtii ku mahadsan ay shaqo hayaan shaqana qabteen laakiin waxaan shaki ku jirin wax badan oo inay qabtaan ay ahayd oo aysan qaban waa jiraan ama ha uu suuragelin weydo imkaaniyaadka iyo tabarta iyo taagta iyo resourceka ay haystaan oo maaragtay yar ama ha u suuragelin weydo inayba bini aadan yihiin oo ay qaldameen ama ay gafeen ha u suuragelin weydo annagu dad qalad ka weyn ma ahin dad in markay gaabiyaan waa gaabinay ka weyn ma ahin laakiin waxaan rabaa dhinaca kale in la barbar dhigo wixii wax qabad ahaa in la barbar dhigo saaxiibkay wuxuu kaloo i weydiiyey oo hadalkiisa ku jirtay in amniga dalka muddadii la soo dhaafay uu faraha ka baxay runtii waxaan codsan lahaa oo aad iyo aad aan u codsan lahaa markii horeba sidaan u codsaday wixii dhaliiloo jiro diyaaraan u nahay waana qaadanaynaa annaga wixii mas-uuliyaddeedu iyo midkeeda marnan kama weynin laakiin waxaan rabnaa haddana in wax walba sidii ay yihiin loo sheego waxaan rabaa baarlamaanka sharafta leh inaan la wadaago ayadana sidoo kale xogtaan ayada ahaan rabaa inaan la wadaago oo soo socoto bilihii janaayo iyo febraayo iyo maarso ayaa waxaan rabaa inaan baarlamaanka sharafta leh iskugu barbar dhigo dhacdooyinkii dhacay oo maaragtay dhacay sida ay kala ahaayeen iyo percentage-ka wixii maaragtay ayadana dhacdooyin oo aan la baajiyey percentage-koodaan rabaa baarlamaankana isku barbar dhigo tusaale ahaan bishii janaayo 57 fal oo ay al-shabaab fuliyeen ayaa waxay ka dhacday dalka 57 fal falkaas wuxuu isugu jiri karaa qarax wuxuu isugu jiri karaa qof la dilay wuxuu isugu jiri karaa bamba la tuuray wuxuu isugu jiri karaa nuucyo badan isugu jiri karaa isla bishaas janaayo 79 fal oo ay rabeen al-shabaab inay fuliyaan ayaa la fashiliyey sidaasoo kale kuwa la fashiliyey ayay waxay isugu jiri karaan qarax bambo dil ay isugu jiri karaan macnaheedu maxay tahay 72% falalkii ay rabeen al-shabaab inay geystaan hay-adaha amniga ayaa fashiliyey waxay ku guulaysteen 28% ku guulaysteen bishii febraayo al-shabaab waxay fuliyeen 8 fal ayay ka fuliyeen dalka xogta anaga aan hayno waxaa la fashiliyey 69 fal ayaa la fashiliyey macnaheedu waxay tahay 89% falkii ay ku talagaleen inay fuliyaan
ولا فشلية وحال فشلية هي أدها أمنية هي فشلية كويتهم بقول كذا وأهل كش أو معناها والوب بوليسن واي إن لا فشلية بشي مارسو وحي شباب الفليين 25 فل أي فليين 25 كافل بقول إيه 5 فلنا هي أدها أمنية وحي بوليسن إن فشليان أي بوليسن معناه إذا وحواي 79 بقول كي wixii falal ahaa ama operation ah ay ku talagaleen waa la fashiliyay waxaan aad uga xumahay inaan bisha April wali xogteedii analyskeedu soo gaarin maadaama bisha wali aysan dhamaanin waxaan rabaa marka in aan baarlamaanka sharafta la wadaago in hay'adaha naga amniga runtii ayagoo ku mahadsan ay shaqo aad iyo aad u xoog badan oo amnigan iyo dalkan xasiloonidiisa qayb weyn ka qaadatay inay hayaan لكن dhinaca kale ayadana sidoo kale waxa ay dagaal kula jiraan cadow runtii qarsoon oo aan banaanka oolin oo maartay marna ka guuleysanaya marna aad ka guuleysanaysa laakiin hadda xogta kale hortiina aan ka aqriyay waxay boqolkiiba boqol ka muuqataa inta badan in inta hay'adaha amniga ay ka guuleysteen ay aad iyo aad u fara badan tahay waxaan rabaa inaan ka jawaabo saaxiibkay wuxuu iga weydiiyay ciidan la yiraahdo Shabeel horta waxaan rabaa inaan uga cudur daarto ciidan Shabeel la yiraahdo ciidamada amniga kamid ah horta ma jiro ciidan ahaan ciidan Shabeel la yiraahdo oo ciidamada amniga kamid ah horta ma jiro haddii uu ula jeedo ciidankii guutada ahaa ee ku jiri jiray iskool buluusiyo ciidankaasi waxa maartay guddiga amniga qaranka uu dib ugu celiyay hay'adihii ama ciidamadii laga soo kala xulay saddexda ciidan kala ahaa ayaa dib loogu celiyay mid ciidanimadiisii laga bedelay iyo mid ciidanimadiisii laga eriyay inta aniga xog aan ku ogahay ma jirto marka taas sidaas aan uga jawaabi lahaa arinta ku saabsan jidgooyooyinka magaalada yaala magaalada jidadka aniga aan ogahay wasaaradda amniga ay ogtahay ee xiran asbaabo kastaba ha u xirnaatay anoo sharxi doona waa 8 jid waay mid waa jidadka soo gala bangiga dhexe midna waa jidka toos u gala hoteelka Curuba toos u gala waa xamarweyne ka yimaado toos u gala midna waa jidadka soo gala meesha dad dhigista oo dawladda hoose midna waa qayb kamid ah jidka hormara hay'adda mas'uuliyadda qaranka midna waa qayb kamid ah jidka hormara wasaaradda amniga midna waa jidka hormara oo kulligiis go'an safaaradda Turkiga midna waa qayb kamid ah jidka hormara wasaaradda cadaaladda ama xaruntii hore ee gobolka Banaadir midna waa qayb kamid ah jidka hormara UN jidadkaasi intooda badan marka laga reebo hal jid oo jidka Curubo gala toddobada jid oo kale waxaa lagu xiray amar iyo talo iyo go'aan ay guddiga amniga qaranka ay gaareen kadib markii la arkay meelahaasi inay mudan yihiin in si gaar ah loo ilaaliyo ayna ka yimaadeen digniino aad iyo aad u tiro badan oo maaragtay ku wajahan qatarna ku ah meelahaasi oo dad badan ay isugu tagaan waxaa shalay golaha wasiiradu uu ka dooday war guddi uu hore u saaray oo uu soo qiimeynayay oo aniga baan ka mid ahaa soo qiimeynaya jidadkaas xiran iyo sababaha u xiran yihiin iyo kulli golaha wasiiradu wuxuu ka dooday jidadkaasi wuxuu ku warbixin ka dhageystay guddigii ugu dambeynna wuxuu go'aan ku gaaray in jidadkaasi wixii lagama maarmaan aan ahayn oo aan amniga qaranka lagama maarmaan u ahayn in la furo wasaarad ahaan iyo hay'adda amni ahaan waxaan diyaar u nahay inaan furno wixii aan amniga qaranka lagama maarmaan aan u ahayn aan taabanayn inaan furno ayaan diyaar u nahay waxaan saaxiibka xidig wuxuu kala weydiiyey miisaaniyad aad iyo aad u fara badan ayaa wasaaradda amniga
iyo hay-adaha amniga loo qoondeeyey waxqabadkeediina nooma muuqato saasaan kale u fahmay uma fahmin inuu leeyahay waa caddeyn iyo waa jeebkaa gashateen uma fahmin waxaan isleeyahay maamaa jirto waxaa la yidhi suun sagaara ninkiisa lugasadeedaa la tusaa waxaan ka wadaa in baahida hay-adaha amniga ay qabaan ee kala duwan oo ay u baahan yihiin inay amniga qaranka wax uga qabtaan iyo miisaaniyadda loo qondeeyaa aad iyo aad ayay u kala tiro badan tahay hay-ada amni ahaan waxaan diyaar u nahay in hay-adaha dowladda u qaabilsan wixii xisaab ah iyo la xisaabtana diyaaran u nahay laakiin ayadan sidoo kale waxaan rabnaa hay-adaha dowladda ee kala duwan oo baarlamaanka sharaftale uu weyn yahay wixii baahi ah oo aan qabnaa amniga qaranka inaan ku sugnaa in nala siiyo lanana ogolaado si maanta xisaabta meeshaan u taaganahay iyo dhaliishaan u taaganahay ay u noqotahay mid ayadana qodobkeeda qabtaa ay u noqotahay aad u mahadsantihiin qodobka ugu dambeeyo oo saaxiibkay weydiiyey waxay tahay in jiraan ciidamo dowladda kala duwan ee mar kasta ku dagaalama kuna dirira jidadka iyo waddooyinka wuxuu tusaale u soo qaatay dagaalka hadda ka dhacay Tixsiile horta waxaan rabaa marka koowaad in sax dagaalo waa dhacaan isku dhacyo waa dhacaan mararka qaar ciidamada dowladda dhexdeeda ka dhaca ama ciidan hal oo isku mid ah ama laba ciidan oo kala duwan waa dhacaan taas wax la inkiri kara ma aha ma sababna oo sida loo sheegayo ama loo buubuuminayo ma aha markiina waxbaa laga qabtaa oo saraakiishii iyo askartii ku lug lahayd waa la qabtaa waa la xiraa waa la ganaaxaa waxaad marar badan idaacadaha ka dhegaysataan dadka ugu badan ee la toogtaahay waa ciidanka qalabka sidaahay dad ka mid ah oo askari kale ama la mid ah ama muwaadin Soomaaliyeed si bareeri u dilay ayaa dadka ugu badan oo maxkamadda ay toogatahay ay tahay laakiin arrinta Tixsiile oo kale haddaan tusaale u soo qaato arrinta Tixsiile askarta dowladeed iyo ciidan dowladeed oo diriraya ma aha waa niman burcad ah oo jidka galay oo ay hay-adaha amnigu howlgal ku bixiyeen si jidkaasi ay u baneeyaan una furaan haddaan wax yar oo xog ah aan idinka siiyo baarlamaanka sharafta leh howlgalkaas asaga ah howlgalkaasi wuxuu suuro geliyey 130 baabuur oo iskaga gooshiisa wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Baydhabo oo ku xayirneed labada dhinac marina weeyday muddo dhowr maalmood ah inay maaragtay jidkaasi marto dadkii muwaadiniinta ahaa ee magaalooyinkaas wixii leega ka shisheeyay ku noolaayo dhanna ee noloshoodii iyo maciishadoodii ee qatar gashay in loo furo wadadii howlgalkaas wuxuu suuro geliyey 8 ka mid ah burcadii in la dilo 30 ka mid ahna la dhaawaco 6 baabuur oo baabuurtii ay u adeegsanayeen burcadnimadana qaar la gubay iyo qaar gacanta lagu soo dhigay intaba ay hay-adaha amniga ka dhigaan marka annagoo aan inkiraynin inay mararka qaar dhacaan in hay-adaha amniga ay kala duwan iyo ciidamada kala duwan ee marmarka qaar isku dhac uu ka dhaco laakiin haddana waxaan rabaa in howlgalladu ay ciidamada ku jiraan iyo waxaa nabadgelyada iyo amniga lagu sugayo iyo maaragtay dagaalada iyo isku dhacyada noocaas oo kale in la kala saaro aad iyo aad u mahadsantihiin.